waxaa barqanimadii maanta magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya. Dibadbaxyaashan ayaa waxa ay ka dhaceen isgoosyo qaar ee ku yaala waqooyiga magaalada Muqdisho. Dibadbaxyadan ayaa la sheegay inay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dibadbaxyaasha iyo askar ka tirsan dowladda Soomaaliya kadib markii ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin militariga Soomaaliya oo baritaaraya dibadbaxyaasha iyo ciidamada booliiska ay ku dagaalameen meelan sida ugu fogeen isgooska Fagax ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, waxaana la sheegay in halkaasi ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 4 ruux oo shacab ah halka ku dhawaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Dibadbaxyaasha maanta gilgilay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay gadaal ay ka riixayeen mucaaradka sida weyn ugu soo horjeeda dowladda madaxweyne Farmaajo, waxaana ay sheegeen inay sii socon doonaan dibadbaxyadan tan iyo inta dowladda Soomaaliya ay ka aqbalayso in doorasho loo dhan yahay ay ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya. Dibadbaxyadan ayaa lagu wadaa inay sii socdaan maalmaha soo aadan, waxaana dadka ay yihiin kuwa u diyaar garoobaya inay ka qayb qaataan dibadbaxyadan kadib markii xalay gilinkii dambe dowladda Soomaaliya ciidamo fara badan ay soo tubtay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho. Gaadiidka sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadka weynaha xambaara ayaa saaka wadooyinka qaar gabi ahaanba laga mamnuucay kadib markii dowladda Soomaaliya ee halkaasi ay soo tubtay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya. Isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga oo baritaaraya dadka dibadbaxyaasha waxa ay ku hardamayeen isgoosyada Sanca iyo Fagax oo dhammaantooda ka tirsan waqooyiga caasimadda dalka. Haddaba dibadbaxyaasha oo maanta ka qayb galay ayaa waxaa erayadoodana ka mid ahaa keena nabadda aan ku muujin doonno. waxaan adduunka iyo beesha caalamka aan u sheegaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo doorashada Soomaaliya laguma aamini karo. doorashada Soomaaliya laguma aamini karo. doorashada Soomaaliya laguma aamini karo. haddii dastuurka la baalmaro waxaa imaanaya burbur. annagana haddaan shacabka banaadirnaana burbur ma doonayno. doorashada kuma aamini karno. waxaan maanta fagaaraha u taagannahay gudaha magaalada Muqdisho in aan caddeeno shucuubteena ku aadan doorashada. sidaa wada ognahay annaga waxaan nahay dad cashuur bixiyaala. madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo si sharaf leh ayaa ku soo dhoweynay. wixii shacabkan ay ku soo dhoweeyeen iyo waxay ka sugayeen ma aysan ka helin. wax badan ayaa loogu soo safray haddii ahaan leeda xagga amniga, haddii ahaan leeda xagga siyaasadda dibadda. wuxuu u soo tafaxirtay inuu boobo